السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wakhtiga subaxda hore 30 daqiiqo quraacda ka hor isku dar biyo diirran iyo wax yar oo ah filfisha madow oo shiidan kadibna cab. Haddii aad sababta isweydiisana aan kuu sheego 10 faa'iido oo ay jidhka u leeyihiin biyaha diirran iyo filfisha madow ee la isku daro wakhtigana la isticmaalo. Waxaanay kala yihiin kow waxay dheefshiidka siiyaan dheecaanada muhiimka waa dheefshiidka waxaanay caloosha iyo guud ahaanba uurku jirta ka saaraan sunta. Laba cilmi baaris lagu sameeyay ayaa lagu sheegay in marka labadan shay la isku daro qaabkana loo isticmaalo ay leeyihiin maadooyin jidhka difaac uga ah kansarka. Saddex marka filfisha madow iyo biyaha diirran la isku daro ee wakhtiga la isticmaalo waxay yeeshaan maadooyin hoos u dhiga halista dhiigkarka. Afar waxay jidhka ka saaraan subagga iyo baruurta badan sidaa darteedna waxay hoos u dhigaan miisaanka jidhka. Shan waxay meesha ka saaraan hargabka iyo qufaca waxaana fiican in wakhtiga qaboobaha la isticmaalo labadan shay. Lix waxay jidhka ka ilaaliyaan bakteeriyada iyo xanuunada la isu gudbiyo. Toddoba waxay nadiifiyaan ilkaha, ciridka iyo afkaba. Sideed waxay u fiican yihiin caafimaad qabka maskaxda waxaanay jidhka ka dhigaan mid degan. Sagaal waxay u wanaagsan yihiin dadka qaba xanuunka sonkorowga iyagoo jidhkana ka xakameeya halista ka iman karta xanuunkaas. 10 waxay maqaarka sare ee jidhka dawo iyo ka hortagba uga yihiin dhibta ka iman karta heerkulka deegaanka iyo fallaadhaha qorraxda. Mahadsanidin.